السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سودا وهذا ولاشن فتوش شنك داون السنة وفاتوش فاميلي ما شاء الله ما أنت وحيابو بدن باربا إن كهالله بيل كوساب سنتال تكسي كريديتك أو شري صوبحي وحا ويهي اوكي iyo sidoo kale Biden union addresskiisa ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo hadii la idmo marka soo dhawaada insha Allah iyo waxyaabaha qodobada uu maanta ka hadli doono hadii ilaahay idmo soo dhawaada barnaamijka subscribe saar like ta noogu didaal maxaa la jira asxaabtaada la share garee yes video kasta like dhac ku siiyo like waxay naga caawinaysaa in videoga dad badan iyo meelo badan u gaar insha Allah aad baan ugu mahadsantiin asxaabta markasta igu xiran السلام عليكم كسو دواده فاتوش فاميلي اونلاين ستور oo aad ka helaysid daahiye aad u qurux badan daahiyada designmadi ugu dambeeyay ayaad ka soo dalban kartaa hadii aad xiiseynaysid naga soo wac taleefanka shaashada ku qoran ama snapchat-kayga igu darso also waxaan hayaa go'yaashii sariiraha iyo miisaska qadada alaabta lagu sharaxayay oo aad kala duwana state kasta aad joogtina shipping waan sameeyaa hadii ilaahay idmo so maanta waa talaado waxaa jirta state union ki address the nation baa lahaa yes Biden uga hadlayo khudbadu soo jeedin doono uga hadli doono wuxuu sheegayaa wadanka waxyaabaha uu qaban doono waxyaabaha uu sameyn doono waxyaabihii hore uu qabtay waxyaabahaas iyo waxyaabaha uu ku caawin doono Amerikaanka dadka degan wadankan in uu raqiisiyo oo lacagtan sicir bararkan waxyaabahan price ku sii kordhayo ayuu ka hadli doonaa so waxa la dhahay address the nation waxa uu ka hadli doonaa madaxweynuhu si costiga maciishadan kordhayso oo wax kasta ay ahaan lahayd gas haday ahaan lahayd everything oo price-kooda kor u kacayo waxyaabaha uu ku caawin doono in uu price-kaas hoos u dhaco okay iyo sababaha keenay okay wala isku ogiyaa qof kasta sababaha keenay waxa way corona waqtigiisa waaye waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkooda inay wadanka soo gali waayeen inay meelaha ku xaniban yihiin waxyaabo badan baa costi garay laakiin wuu ka hadli doonaa okay sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa Supreme Court sidoo Supreme Court qofku bigareeyay ayuu ka hadli doonaa kulay sidee qualified ugu tahay traditionka waxyaabahaas buu ka hadli doonaa waxa ku xigi doona oo asagana uu ka hadli doona masti waxa leeyahay awal topiga wadanka bisu ku saabsanaa laakiin hadda bedeli doonta Ukraine Russia wuxuu ka qabtay Ukraine sidoo uu caawiyay waxaas buu ka sheekeyn doona oo ku qasban yahay ma fahanti inuu outside policy u soo galo qasab weey marka wala arki doona kulay I am ready inaan watch gareey insha Allah kulay dadku waxay aad ugu hanqal taagaya inay maqlaan oo ugu muhiimsan dhaqaalaha okay dhaqaalahan qaribmay because of prices oo kor u kacay haday ahaan leed oil haday ahaan leed gas haday ahaan leed energy wax kasta guriga aad degan tahay wax kasta way isbedelaan price-ka wax kasta gas aad bixin jirtay koronto aad bixin jirtay samadaas isku shareereen baabuurti gaaska lagu shubanayay cirkaas isku shareereen wax kasta oo suuqa la damcay inuu soo gato double oo 3 jibaar buu noqdo price-koodii maahan okay the same time waxa laga yaabaa dadka qofku wixii soo galay isla wixii soo galay inay lacagta isbedelaan soo marka waxa waaye aad bay dadku ugu xanaaqsan yihiin dhaqaalaha iyo inflationka oo usan waxa kulli asbax waa ka qaban laakiin waxay u aadayeen in waxba ka qabanin that's why uu u drop gareysmay pointyadu uu haystay iyo sidii awal loo read gareeyay the lowest ee maraysaa because of that sidoo kale Ukraine Russia waad aragteen dagaalka iyo waxa ka socda so dadku waxay rabaan inay ogaadaan maxay u geysan kartaa say u effect gareyn kartaa maadaama Putin uu diyaar gareystay uu wargeliyay militarigiisa nuclearkiisa maxay America dib ah oo ka soo gaari kara iyo miyay cabsanayaan ma loo baahan inay cabsadaan oo wax u geysan kara ay dadku miiska soo fadhiyaan inuu Biden ka dhawaajo okay marka caaw soo galaya
haddii la haydmo haddii aan u gudubno xagga stimulus check ama package kulli qasab uu ka hadli doonaa because build back better oo magac kala ah sida anigu qiyaasayo ayuu caaway ku dhawaaqi doonaa okay build back better magacaas waa laga bedelaya laakiin somehow waxa uu la imaan doonaa package uu rabo dhaqaalaha iyo wadanka in lagu caawiyo waa sida aniga fitush ahaan isleeyahay because build back better asagoo meelna u dhaqaaqin because of Joe mentioned child tax credit uu ku expire garoobay I don't think our address the nation inuu kasoo tegi doono wax package ama dhaqaale uu kusoo kordhinayo wadanka hadday ahaan lahayd because ilmihii lacagta laga goostay taasna waa loo hanqal taagaya waxaan u malaynayaa package-ka dambe oo uu samayn doono inuu ka dhawaajin doono waa qiyaasteeda kulli waa arki doonaa sidoo kale Mitt Romney ayaa yesterday shalay waxa uu soo bandhigay biilkaas oo uu soo propose gareeyay okay awal hore sheekadiisa waxay ahayd cabaar dhan uu sheekadan uu waday in uu soo propose gareyn doono biil okay biilkan wuxuu ku saabsan yahay child tax credit oo kororsan lacagtii la kordhiyay camal oo kale yacni waa asaga kiisa yacni uu baasi karaa waana la diidi karaa okay so haddii aad bay u adag tahay maadaama dee dimuqraadiga labadooda ay wada haystaan in ay Mitt Romney qaataan biilkiisa oo la wada codeeyo aad bay u adagtay because dadkan kale xisbi waaye siyaasad bay isku waxaynayaan marka ayakoo package waxyaabo badan ku jiro baasgaraysan kara oo child tax credit u malaynaya keligiis inuu qaado laakiin wuu soo propose gareeyo okay republicans haddii ku raacaan wuu samayn karaa so waxa uu yahay waxaa la yidhaahdaa family security act baa lahaa okay magaciisa saas uu soo baxay waxa uu yiri waxa ku jirta in la haddii la ogolaado in la siin doona $350 meeshii awal 300 bishii ay kayd ilmaha dhashay ilaa 5 sano jira okay ilmaha dhashay xataa ma kan 4 bilood hooyadu markii dhalmadeeda ka dhiman tahay ayay u bilaabanaysaa lacagtu okay so 4 bilood qofka 5 bilood 5 bilood uur kale ay lacagtu u soo bilaabanaysaa 4 bilood okay ayadoo dhalmadeedii ka dhimanta aan dhalin ay qaadanaysaa waa sida biilkiisu u yahay okay sida uu yahay Mitt Romney oo ka soo jeeda Utah proposekiisu uu soo propose gareeyo okay waa hadii la ogolaado 4 bilood markay dhalmadeeda ka dhimanta cunuga yarka markay 4taas bilood hooyo 5 bilood uur soo lahayd ilaa cunugaas ay dhasho uu 5 sano ka noqonayo waxa weeye 350 bish from 6 sano ilaa 17 sanana waa 250 waa isla sidii soo waxay noqonaysaa 350 ku dhufo waxaad ku dhufatid 12 months waxay noqonaysaa 4200 cunugi yaraa iyo 3000 cunugi kale ilmihii kale lama bedelin ilmihii school age lama bedelin okay so Mitt Romney 3 wax buu cogsanaya 3 wax بوليه يعني السبب صدقلاس واحد درته وأنا شاتكس كل سنة نمبر 1 وهو بانديميك أوكي وبانديميك في مدينة واستراقل قرينيان اللي هي وحواي they need help أوكي مركز صدقات وحولي marriage دتك بس بورسون واي سو ما حكى بقى إن family هذي أبورتان family سمايستان in the أوكي دتك ديران ولا قد married أوكي أمريكان قد أنت على الله أوكي ما ورا بين اسكورسدان اوكي سداك يا غوركي بددكي ايسن غورسنين سو وخلي غوركي با يراده سو سيده غوركا لو kor loogu soo qaado waa in child tax credit loo qaado soo dadka inta isguursadaan ay ilmaha iska dhalaan inta ay lacag qaataan okay wuxuu ku leeyahay birth rate low way the birth rate ku dhahay is the lowest okay dhalmada dadka ee dhanay ilmihii dhalanay waxay maraysaa meesha ugu yareed soo dadkan waxay taagan anaka ma warno in buuqood qarash waaye rafaadkood caafimaadkood dhalmadii waa lacag halka la cunug walba $20,000 baa lagu dhalayaa korintii baa daadaab iska deynay dadka qaarkiisa soo yani basically dadkii ma rabaan inay dhalaan okay soo muku taagay in generation keeni meel buu ka fikray okay wuxuu ku leeyahay hadii dadka dhalmada iska yareeyaan waa sida u dhigmayso
dad waaweyn baa meesha iskugu soo haraya marka dadkii yaryaraay generationkii soo kacayay oo dee xukunka qabanayay oo America u soo kacay ayaa yaraanayso wuxuu taagayaan dhalmada inaan kordhino waa in lacagtaas loo sameeyo child tax credit la ogolaada okay dad badan oo Republican-ka ku raaci doonaa bal waan arki doonaa biilkiisu meeshuu gaarayo soo markuu soo propose gareeyo shalay ayuu soo propose gareeyay yani uu soo bandhigay balaankiisa wuxuuna codsanayaa dadka inay u codeen Republican iyo Democratic okay so haddii lacala house-ka la geeyo oo loo soo codeeyo Republican Democratic baa haysta markuu sanadka imaado wuxuu u baahan 10 qof oo fikradaas la leh Republican ku raacsan inay all Republican ku soo biirto 10 qof oo Democratic saas bisu ku baasi kara madaxweynaha uu saxiix kara laakiin waxa waaye Democratic waxay rabaan waxa waaye child tax credit intaan joomeesh ka ahayn balaas waxyaabo badan oo Medicaid iyo waxyaabahaas the package big bay rabaan ma rabaan child tax credit kaligiis oo meel taagan marka waa arki doonaa Mitroni meesha uu ku dhamaado biilkiisa iyo sidoo uu hirgalo iyo in la hirgaliyo iyo in kale fikradaasna maxaad ka qabtaa bal hoos noogu soo qor fikradaada inaan ogaanaan rabnaay miyaa la dhihi karaa dadku inay dhalaan waa in lacag la siiyaa okay مكولاتها دتك إني سجورسان إلى عقل سيدي أنا كالحمد لله رب العالمين مسلم بابنهاي أول بدي الما درس لسان عن بقف كاستمر كورة إنه فيلم الدكتور جور كحلاش أي قارة إنه سجورسان تاس أنا كبده هنا لكن وحن كهذا وضن هان وحن أمسين بقص أنا كنت ما أمسين جورك ما أنت الجوري يقول مكتب عين سجورسان وسجورسان وش قيسنا يعني العنقة دال عقل يقصي ما دهان وحربان الماس أي كاب إنجوي كرنا أنا دالان أوكي وكبحسنا لكن فكرة متروني سيدة عرفتها أوكي وإيه مهم فكرة هذا إيه أنا فكرة ويدرسنا إن شاء الله أدبل أمها سنتا سيدة موضوع أنا يتشنال كأنه بقول حرمتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته